2016 15 akademiyada la furay 16 waxaan lagu bari jiray imaamada akademiyada tababar halin siiyo af Soomaaliga halin ka dhiso ya ma garat af Soomaaliga aqoonidin halin ka dhiso because af Soomaaliga qof kasta xaafadiisa uu qoraya ya hadda tusaale ahaan maalin dhawta waxaan dhageysanayay suugaanta aniga aad aan dhageystaa Abdulqaadir Muuye baa wuxuu hisbu qaaday his يا في عني فيوري هي هبلوضو أنا كافي في كراية في روم حوف لكم مرة فرنجة ليلة بحا في الذين منين إمادة وكفورها كلا عبي فسر لا فهم أيوه لكن ده حدنا لهجد وايتاس لهجد الرحمري جوا مركب بلشيد الصوماليين بلشير قيب كمية واي لكن حدنا بلشيد غالب كي ما فهميس marka lahjadaha maadaama qof kastaba oo Soomaali ah meel uu ka yimid oo lahjada ay jiraan lahjadahaas inta laga soo tago meel dhexdhexaad ah oo qofkan uu fahmi karo in lisla tan arintan oo af Soomaaliga dhibaatooyinka qorayaasha heestana waa arin aan u deenay akademiyada oo la rabo in ay maadaama hadda gudiga af Soomaaliga wax badan hadda howlo badan ay socdaan la rabo in lisla wada qabto oo ma aha wax maanta la xalin karo bari la xalin karo laakiin waa wax mustaqbal iyo vision dheer laga yeesho u baahan اوكي sideen uga hortagi karaa cabsida markaste cabsida waxa uga hortagi kartaa cabsidu cabsina waa laba nooc aan isla yaaniga oo kala qaadi lahaa cabsi waa cabsi guud oo jirta cabsina waa cabsi qofku uu isagu abuuranayo hadda qof kasta wuxuu aaminsan yahay hadduu talaabo qaado inuu wax qaldan sameeyo laakiin saas ma aha adiga maskaxdaada waxay ka dhaadhicinaysaa inay waxaas wax qaldan yihiin laakiin bulshada caadi waa marka cabsidu waxa uga hortagi kartaa naftaada la dagaalan ma garat ha dhageysan naftaada mararka qaar kood naftaada dafir ma garat because waxay ku siinaysaa wadadii saxda ahayd oo liisha ahayn oo wado kale jajaba ay ku diraysaa marka taasna muhiim waxa waaye in cabsida la sheegayo adiga aad iska saari kartid hadad shii qorshe u baahan tahay oo lagu geey karaa farqiga u dhaxeeya cilmi baarista iyo qoraalka iyo farqiga runtii u dhaxeeya cilmi baaristu wax cusub in la baaro waa cilmi baaristu laba eray ayuu ka kooban yahay oo ah wax cusub in la soo saaro ama wax hore u jiray oo mugdi bulshada uga jiray in la soo saaro laakiin qoraalku waa ka duwan yahay qoraalku wuxuu noqon karaa waxaad adiga wax hore u jiray oo aad si tixraacday ama wax cusub aad lift waa qayb waana isku mid waana kala duwan yihiin laakiin cilmi baaristu wuxuu kaga duwan yahay waxa waaye cilmi baaristu waqti dheer ay qaadanaysaa laakiin buug in la soo saaro inkastoo ayaduna waqti dheer qaadato laakiin way ka waqti kooban tahay ma garatay marka hadda adduunku inta badan waa la isdul saaraa oo sida qofku markuu jaamacadda dhiganayo politics and journalist ee jira saxafi qoraa ya hadda cilmi baarista iyo qoraanimada farqi weyn uma dhaxeeyo ma garatay يعني قف كسته أو قرآن نقضى آخر كوينه علبارية نقضى مركب مهم وايه انتاس أيضا هوست أنك حرقناه شروط متجرته أما كريتيريا ودكسن إنه قفكو A B هذا تصال هان قفك جامعة جلا محل قربا إنه شهادة دكسر هستو إنه ده دي سكوي انتهاي سديدي تبان سمان إنه يا سؤال أساس عمله مركب متجرته واحد ستاندر الدنيا ده نسخوا فقسنتها أو اللي هذا قرآن ماذا ودكسنته مجرته qofku bis inuu mawhibo leeyahay waa ma garat mawhibo iyo waxaan in ay soo ka go'an tahay bis waay ma jirto wax gaar ah oo aan dhihi karo shuruudahaas u degsan ma jirto waxaana mudan in qofku isagu istrangareeyo oo isagu yani muxuu ahaa isagu raadsado